dabeecadaha bini'aadamku waxaa ka mid ah waxbadsi, darajo doonis, iyo in aasaagoood wax dheeraadaan. laakiin marka la joogo magaalooyinka caalamka ugu taajirsan sida Abu Dhabi iyo Dubai oo dadkoo dhan si siman u wada nool yihiin marka laga eego guryaha ay degan yihiin iyo gawaarida ay wataan, oo qof walba uu wato gawaarida caalamka ugu qaalisan, xitaa booliistii ay wataan. marka maadaama gudaha bini'aadamku uu ka guuxayo kala sarayn, waxaa laga maarmaan ah geemka kala saraynta inuu isu bedelo dhinac kale. magaalooyinkaas dhexdooda waxaa lagu arki karaa gaari taargada ay ku xiran tahay qiimaha ay joogto ku 10 jibaarmayso qiimaha gaariga uu joogo. taargada nambarkeeda siday u kala yar tahay ay u kala lacag badan yihiin. tusaale ahaan markaa u soo qaadano taargada nambarka 1 ee Abu Dhabi oo lagu kala iibsaday lacag gaarayso 52 dirham ama 14 milyan oo doolarka Mareykanka. waxaana iibsaday ninkan ganacsatada ah oo lagu magacaabo Saeed Al-Khoury markii ay ahayd sanadkii 2008. si kastaba markii ugu horeysay ee la ii sheegay in dalka Imaaraadka lagu kala iibsaday taargad kaliya 14 milyan oo doolar, waxaan isweydiiyey su'aashaas oo laga yaabo in adigana isweydiisay maxaa waaye dadkan ku kala iibsanaya hal taargad 14 milyan, dadna waxay la asan yihiin waxay cunaan maanta. laakiin markaan baaritaan yar aan sameeyey waxaan arkay lacagta laga sameeyo taargada inteeda badan inay aado charity-ga ama tabarucaadka dadka aan wax haysanin in la siiyo. taargadaas Abu Dhabi ee nambarka 1 waxaa ka qaalisan taargooyin kale. taargada caalamka ugu qaalisan waa taargada California ee ama ma oo qiimaheedu uu joogo 24 milyan oo doolarka Mareykanka. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. sidee u aragtaa hal taargad ma ku iibsan lahayd lacag intaas le'eg? dabcan haddii aad haysan lahayd. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.